kusoo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan sar subscribe notification kana furo siday ku soo gaaraan muuqaalada cusub ee la soo geliyo channelka isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشان كلمات ku saabsan yahay politicians waa siyaasiyiinta waa bugan English for you waa Wadasheekaysi ku saabsanaa politicians siyaasiyiinta ama siyaasadda waani waa Khalid Cabdi Halkani waa Somali la socod Wadasheekaysi oo dhamaystiran hadaba ma u baahnayd barashada luuqada Ingriiska ma heli weydin chance aad ku tagto school ama fasal haddaba waxaan ku diyaarinay hal cusub oo ah barashada luuqada Ingriiska adiga oo jooga gurigaaga haddii aad danaynayso nagala soo xiriir WhatsApp numberka shaashada ku qoran. عشان كلمات ku saabsanaa politicians siyaasiyiinta and who is your favorite politician? siyaasiga aad xiisaysaa waa kee? Who is your favorite politician? siyaasiga aad xiisaysaa waa kee? Who is your favorite politician? siyaasiga aad xiisaysaa waa kee ama siyaasiga aad ka heshaa? Faysal Ali Waraabe ayuu siyaasiga aan xiisay Solomon soo qaadanay. Somaliland politician waa siyaasi reer Somaliland politician Faysal Ali Waraabe wuxuu weeyaan siyaasi reer Somaliland ay ku jawaabay ayaa su'aal kala weydiiyay what party he is xisbiga ayuu ka tirsan yahay what party he is xisbiga ayuu ka tirsan yahay what party he is xisbiga ayuu ka tirsan yahay he is a chairman so waa horjooga ama gudoomiyaha he is a chairman waa gudoomiyaha Fudud weeyaan xisbiga Ucud oo ah political party xisbi siyaasadeed he is a chairman so waa gudoomiyaha Fudud weeyaan waa Ucudna waxa weeyaan political party xisbiga siyaasadeed isi famous caan ma yahay mashhuur ma yahay ma la yaqaana isi famous caan ma yahay popular baa la macna isi famous caan ma yahay yes he is well known aad ayaa looga yaqaana he is isaga well known aad ayaa si fiican baa looga yaqaana all of the world adduunka oo dhan si fiican baa looga yaqaana well known waa aad garash ama macruuf buu ka yahay all of the world caalamka oo dhan where is he from xaquu ka yimi isagu xaquu ka yimi where is he from xaquu ka yimi he comes from wuxuu ka yimi the USA kami Mareykanka ayuu ka yimi tusaale weeyaan he comes from wuxuu ka yimi the USA Mareykanka ayuu ka yimi daasi appear on the TV-ga ma ka muuqdaa xashada ma ka muuqdaa daasi appear mi ka muuqdaa on the TV-ga mi ka muuqdaa yes of course ha dabcan uu ka muuqdaa daasi appear on the TV-ga mi ka muuqdaa yes of course ha dabcan uu ka muuqdaa weeyaan yes of course ha dabcan. This is end of our lesson today. So till next lesson. Assalamu alaikum. Halkaas aan ku doonaa casharkeeni. So inta casharka waxaan ku kulmi doonaa. Assalamu alaikum. Arday baan ahayo oo waxii wadankan ahayo